inay qarxinayso ama bambaynayso meeshaasi oo maaragtay nidaamka ay burburin doonto xulafo dhowna waxay la tahay Mareykanka marka waxaasi ma suuragali weyse mise way ku dhici weyday horta ciidanka masaarida iyo ciidanka Ethiopia iskuma dhowo oo waxay leeyihiin masaarida marka la sheegayo adduunyada halkee ka jirta dagaal dawlad ahaan yani Masar مثلا وعيدان كصدح يطبانات أدونك لبي يطبان دولود بعدوك قريبا إثيوبيا نوع اللحظة مثل بعد وارس هذا لو وريها هلك أي مساردو نكحجة تكون ديارات دجال كا إثيوبيا واحد طالبي زعاش حسكون دو معها هلك مساردو أي كحجة تصدق يكون أود بدود إمارة إثيوبيا waxay haysataa 360 saaqadaba halka ay miisaaniyada masaarida ee gaashaandhigu ay ka tahay 10 bilyan oo dollar waa 500 milyan Ethiopia marka wax isku dhow maaha hadii masaaridu soo weerarto dhul iyo bari iyo badbaba way ka adkaanaysaa لكن ما صورة قلبها إنها مصارد إثيوبيا ويرتو ما أنت صدق حريمات بنا أسوق تديني أريتو كوباد هذا بكرو سوق عضو إسرائيل باقي فتدا والله غاية والله غاية مركا أودا ما هي صوب مصارد بك لبو عقيدتي عيدنك دوا باقاري عيدنك مصاردها سيدو حريمها عقيدتودii ahaa niil u dhinta baa gaaray wuxuu noqday ciidanka masaaridu ciidan calooshu shaqaysta shirkada iyo dukaanada iyo baabuuro iyo waxa dhisaan fanaadiq way ka baxeen wixii yar adduunyo galeen maaha ciidan waa raganimo lama arrintaasina way ku dhacday arrin saddexaad baa u diidaysa arrin saddexaad waxay labaduba waxay xalif leeyihiin Mareykanka bas xib leeyihiin Mareykanka intaas waa u dhex galay marka Mareykanka ogol in balaha biyo xidhanka la dhiso ولذلك markay Ethiopia leedahay 6 bilyan oo lacagan gudaha ka soo ururay waana ka laha oo waxay iyadu soo dhigaysaa weeyaan waxa kama jira Imaaraadka ka qayb gashay Sacuudiga ka qayb galay Israa'iil baa ka qayb gashay Mareykanka ka qayb galay Djibouti xitaa ka qayb gasho 1 bilyan oo faranka Djibouti bixisay Kenya ka qayb gashay laakiin lacagta ugu badan sala sheegayo waa lacag qarbiga khaasatan Mareykanka ay bixiyeen raalli bikay marka intuu masaaradu ma weerari karayso imika ahaan duruuf ay ku weerarto ma hayso ma saamaxayso midda labaad ee kale dawladdu awoodii iyo xoogii ay isbidaysay way ka burburtay iraadadiina ma leh rabitaankii adkaayay madaxweynayaashii hore lahaayeen siisina ma leh marka siisi wuxuu noqday nin oo maaragtay ka sadaqaysta marna Sacuudiga marna Imaaraadka wuxuu bahdilay ruuxdii dawladda masaarida wala tiray Jamal Hamdan ninka dhacdo oo khabiir istiraatiiji oo masaarida wala dilay culus ah jiray wuxuu yiraahdaa Masar waxa laga dili doonaa weliga Neel ama waxa laga dili doonaa Gaza ciidanka masaaridu waa inay difaacaan had iyo jeer Neel iyo Gaza bas weligeedna Masar markasta oo la dumiyo waxa laga yimi jiray Gaza haddana Israa'iil baa soo fariisan rabta waqas ninkaas istiraatiijiyadu u dhigay ilaa imika way muuqataa shaqeynaysa waa tahay shaqana jazakallahu khair hadaba biixranka waa la dhisay waa adiga arkayay waa la furay si official ah madaxweynayaal badan baa meesha isugu tagay maxaa dhibaato u keeni karaya Masar iyo Suudaan horta markii la furay 14 sano kadib baa la dhisay yaa la furay استراتيجية واحد شان يطبعا لا ليه طبعا أنا كديب اللي فرق وقت يبقى الوجود مي أفريت توصله وقت يوم بعد أرتو مصر ده وحو كان يا بإنجيك نوكو إنجيك يا أبارو هرات جاجو بقولي 4 مليون أو شعبية أو بقولي 8 مليون بقولي 8 مليون بقى شجع ونلاش بقوة تكتاي شيء كلام ودقالة هي
markay biyo la isku yimaado taasaa ku dhici doonta. suudaanna wuxuu u keenayaa baa lidhi fayadaanaad. suudaan biyo yaraan kuma dhacayso, waxaa ku dhaci doona inay maaragtay biyo fatahaan. biyaha marka la sii daayaba way ku fatahayaan. fatahad badan, markasi fatahad badan baa dhici doona. fatahadaha waqtigiisa waa la yaqaanay, iminka la garan maayo. Ethiopia furaysa, Ethiopia xidhaysa, laakiin beriga waxay ahayd fatahada waqti yimaada roobka ku xidhay. roobka ku xidhayd. laakiin marka mid aan la garanayn baa iman doonaa. midda kaleeto waxaa jiray dadka suudaantu waxay ku tala jireen inta biyo u imanaysaa way ogaayeen oo biyo way ku salin jireen, laakiin iminka waa inta Ethiopia u ogolaataa iman doonta. Unpredictable. marka dhaqaalaha iyo iqtisaadka iyo istiraatiijiyadda intaba wax weyn baa ka iman doonaa dhinac labada wadanba. marka halis weyn baa kusoo socota labada wadanba. mushkilada dhacdana Suudaan oo burbursan iyo Masar oo macna ahaan burbursan. Ethiopia nafteedu ma dhisno marka la yiraahdo burbursan tahay qowmiyadkaas haysta la yiraahdo. laakiin arrintan maanta waxay keentay in xafladda markii la dhigayay Ethiopia waxay u arkayeen shucuubta Ethiopia oo dhali guul, waxayna u farxeen si qeyr caadi ah. waxayna u arkayeen inay tahay ciid qowmi ah. waxaana la sheegay in maalintii la furay baaka la furay in laga dhigi doono ciid qowmi ah. ciid qowmi caadi laga dhigi doono waa national unity. lianna wuxuu isku xidhay dadka Ethiopia, wuxuu u sameeyey amal, wuxuu ilowsiiyey baroblemada mashaarka haysta. miskiinka dariiqa jiifa ee looma ooyaanka iyo iskaga manaamaya oo iskaga khayaalaya inuu 10 sano kadib oo maaragtay Ethiopia ay kici doonto. markaas mashruuc baa loo sameeyey. dowladda Masar ee hadda maamulkaas Sisi madaxweynaha ka yahay ayagu sidee u arkaan biyo xirankaan la furay? horta dowladda Masaaridu sheekhow marka imika diraasad lagu sameeyo waa 3 qol weeyaan. 3 daa'ire ku jiraan. waxaa la yiraahdaa ad-dawaa'ir salaasa. daa'irada ugu ceerisan waa Sisi, familigiisa iyo mukhaabaraadkiisa. daa'irada labaad waxaa ku jira waxa loo yaqaan ad-dawla al-amiqa oo 3 u kala baxaysa. mukhaabaraadkii caskarigii iyo ciidankii waliba nool dadka nool ah. midda kaleeto waa daa'irada saddexaad ee ka sareysa waa mufakiriintii iyo khubradii. se wax u kala qabaan horta Sisi barnaamij uga dajisan arrintan ma jiro, qorsho ma hayo. kuwan aan u bixiyay dowladda camiiqa waxa ay aad uga hadlaan imika 3 arrimood oo khatar ah. waxay ka hadlaan amniga Masar ee qowmiga ah inuu halis ku jiro, walidaalika iyakaana difaaca si hoos ah marka qaarkood muqaawamada sirtana siiya. arrinta webiga Niilna waxay ka qabaan fikrad. sidaa daraaddeed waxay ka sheekaystaan marka qaarkood sideen u badbaadinaa Masar si la badbaadiyo. waxay la gashaa meel halis ah. waxay la gashaa badbaadada Masar waxay ku xidhan tahay in Sisi la afgabiyo. qaar baa aaminsan meesha ay mataa marka halkii ay soo gaadho ciidan badan baa la laayaa. Sisi weli xoogii buu hayaa, dowlad buu hayaa. rag badan oo ciidanka ah ayaa xabsida ku jira oo official lahaa. waxaa socday qaadan lahayn. marka muxuu sameeyey marka safkii koowaad ee ciidanka iyo kii labaad iyo kii saddexaad buu u dhameeyey. wuxuu geliyo macaash, wuxuu shaqo mustashaarin iyo la taliyaal ka dhigo, wuxuu shirkado u sameeyo ciidan ka saaro, waxaasuu sameeyey. marka intaas oo dhan waxaa looga jeedaa arrintaa baa looga jeedaa, laakiin raggaas aad ka fikiraan. fikraddii maxaa u keentaa markaa yidhi ninka way halistuba. mid saddexaad aa jirta waxay ka hadlaan si Masar loo badbaadiyo waa inaan aqbalin waxa qasa ka dhacaya. arrintaas markaa waxay keentaa inay yidhaahdaan waa inaan dhaqaaqno. walidaalika imika ugu dambayntii waxaa la fasaxay shicibka Masaarida 2 shay baa loo fasaxay inay arrinta qasa ka hadlaan si open ah. waxaana loo fasaxay inay duceeyaan masaajidda. dib waxaa loo soo noolanayaa habeenkii loo tambuurtay nabiga la dhigayay nin oo Yamani ah oo Suufi ah ayaa looga yeedhay Yamanta. waxaa laga yidhi arrintan ka hadal, uu ka hadlay kadib ducee baa laga yidhi. wuxuu akhriyay ducooyinkii la akhrin jiray berigii hore ee la mamnuucay. اللهم عليك اللهم marka taas waxaa leeyahay waxaa fasax laga haystaa
رجع maamulka haya قولنا صدحات يعني كائن والدولة الخبراء khubradii kore iyagu sida caadiga u fikirayaan wayna qorayaan waxayna soo bandhigayaan in masaaridu ay halis ku jirto laakiin ma oran karaan waxaa badbaadin kara siisi intaa ma sheegaan ma sheegi karaya laakiin xaqiiqada si fiican uga hadlaan ولذلك waxa weeyaan dadku waxay leeyihiin aqoonyahanka waaweyn masaaridu waxay leeyihiin masar waxay joogtaa muftaraqu turuq meesha baawarada ku kala isgoys bay joogtaa isgoyskii dadka u dhaqaaqayso ma la isweydiinaya hadday dhinac u dhaqaaqi weydo saddexdo jida ka soo baxay midig iyo bidix iyo hor hadday u dhaqaaqi weydo infijaar baa dhacaya ida isku qarxaysa leanna dadku halkaa ay joogeen ma dhaafi karayaan meesha ugu dambaysa soo gaadheen waa tahay abi axmed haddaan u imaano marka in badan baan masar ku dheeraanay markii meesha la furahayay oo munaasabadii u ilmeeyey muddo oynahayay maxaa keenaya inuu isagoo horumarkaas iyo awooddaas u soo hoyay waddanka Ethiopia meesha ka farxay maxaa loo oynayay horta dadku waxay isweydiiyeen gaar ahaan dhalinyarada Soomaalida abi axmed marubu oo yamso uu jilaya iska kan keenay uu jilaya marka qofku markuu run ooyay markuu jilaya isku mid maaha oohintiisu run baaxid run buu ilmeeyay ilmadu inta run ma ahayn garkii gaadhay si aad maqlisay marka dadku ilaahay habeen garkii ka daadaadiyay tusaxay ahayd marka way daaysay soo socdaysay una maqnaana wuxuu ku maqnaa uu daawanayay mar caalamku eegayay mar wuxuu eegayay buurtan mar wuxuu eegayay waxa dhacaya يعني wuxuu arkayay inuu xulmi xaqiijiyay Hayle Selassie isaguna hadii wuxuu isku xidhaa Hayle Selassie milig inkastay isku qolo inay yihiin la hubin dadka laakiin waxay dhacdaa dadku hatta Hayle Selassie oran waa alleelay xarbay hatta milig naftiisu ama xarbay marka waxaan buu isku xidhaa dhacdaa dadkayga waa kaas aan waxaan ka soo jeedaa qoysaskaas qaar baa soo bandhigaya buu iclaamin doonaa boqornimo imika بعد قليل عليها لقى بقرني وين راه بقره بنيبه لانه هو يدي بكتر هذا بقره كو اركي موقت سبب ذكو شغا هو ما نام قرت انا كوريوتي انا ملك رياضي marka wadaadka maxaa ku weysiiyay dadka baa waan la yaabay ay isku weysiinay hor waan la yaabay laakiin wuxuu weysay saddex arrimood horta ninka ma taqaanaa ween ninka horta waa nin masiixi ah oo protestant ah oo usuuli ah oo wadaad ah wuxuu ku jiraa kaniisad injiili ah waa injilikani orthodox kama aha orthodox maaha oo protestant waliba qolooyinkan cusub usuuliyiinta weeyaan dadkaasina waa dad diintu ay qalbiga ku weyntaa weeyaan marka inuu ooyo waa way ooyaanba isku yimaadaan bay ooyaanba normal bay sa muslimiintu ooya marka ilaahay caabudayaan nabiga sidoo kale u tahay saas oo kale kadaas waa midda weeyaan wuxuu xusayaa dowlad weyn oo Ethiopia raado oo masiixiintu ay ku xoog badan yihiin inuu u dhisay awood ay taariikhda ku gasho saas uu ooyaa arinta labaad ee ooyinta u keentay waxa weeyaan waxa uu dareemayaa ninka farxad in uu xaqiijiyay qadiya taariikhiya historic inuu dhaqaajiyo Ethiopia u soo hayay inuu joogo mifsal min mawaasil taariikh taariikhdu waxay leedahay meelo maaragtay iska gasha taariikhdu taariikhdu sabab iska soconaysaa markii meel gaadho waxa bilaabmaysa mid kala bilaabmaysa halkaa buu isagu joogaa iminka xamse taariikhdu way soo socotay wuxuu ahaa Mengistu markuu socday Meles baa soo waday halkaas soo gaarsiiyay anaa bilaabay iminka goor bilaabaysaa maa bacda sad bixidheeka kadib Ethiopia bilaabaysaa Ethiopia cusub renaissance waa sidaa dib u rasho xisbigiisana wuxuu bixiyay isdihaar xisbigii barwaaqada marka waa inaad isku xidhid renaissance iyo barwaaqada isku xidhid iyo isaga marka tan buu markaa koraya isagu taasaa oohinta ka keentay arrinta saddexaad ka keentay oohinta waxa weeyaan doqonnimada basaarida iyo kuwani harariyaha ka joogay oo waxba la socon iska yimidoon meesha anigu waxaan la yaabay labada madaxweyne leenahay geele iyo xasan sheekh maxay meesha ka doonayaan shucuubtooda maxay u xaqiijiyeen maxay u dhiseen maxay ku faanayaan maxay ku farxayaan way daawanayeen gacmahay ku fiiqayeen gacmahay haysteen maxaa maladii hadda
waxaan maxaa kaala socday waxaan Ethiopia samaystay Ethiopia noo xakunto dan kaloo dambe waxa loo samaystay adiga maxaad meeshan la imatay nothing cajiib weeyaan markaasi waxaan la yaabanaa hinta waxaa ka keenayay dadka la jooga ee masaakiinta ah harraha ka taagan iska nool ya ee badahoogii iyo biyahoogii iyo dhulkoogii oo dhan lagu socdo kuwaas waxa markaa ku weysiiyo waa farxad waa diin waa doqonnimo arriisa taallo oo leeyahay alxamdulilah anu waan dhaqaaqay maanta waa tahay marka saabuu weeye baryahan isla qodobka hadda ka hadashay waxaa aada loo hadalhayay dowladda Soomaaliya iyo Masar inay aad isugu soo dhawaanayaan oo Masar hadda ay diyaar u tahay in military ahaan ay Soomaaliya taageero badan ay u muujiso waa iyadii helicopter wax siiyay ciidamada u tababarto ciidamada Masarna ay yimaadaan marka Xasan Sheekh in uu ka qayb galo furitaanka biyo xireenkanka weyn dowladda Masar ay u aragto amni qowmigeed inuu halis ku yahay maxaa dhibaato u keeni karaya xiriirkaas horta masaaridu Xasan Sheekh uu ku qasbay inuu ka qayb galo shirka oo Ethiopia kaga gacan dheer Masar Soomaaliya gudaheeda ciidamada ka jooga Ethiopia kaga gacan dheer amnigeena wuxuu ku xidhan yahay Ethiopia raalli ka tahay raalli ka ah Ethiopia wayna kala diri karaysaa wayna soo kala diri karaysaa marka laakiin masaaridu meel ka fog weeyaan iyadii baa meel u socotaa garan laha marka inuu tago oo ka qayb galo oo ku qasbanaa isaga Ismaaciil Mageelaba way ku qasban yihiin masaarida maanta maxay siin kartaa Soomaaliya استراتيجي أهان أنا وحيلة أحباب فاقد شيء لا يعطي وانترست أو هيسمى لها مجر ليك هو بيجيس الدفاعي لها بيسا قصدنا الدفاعي لها صومالي وحو مقامنا جيبوتي هشيسو لقى الواوين حوكا مقامنا وحويان مصر وهذا معناته مصر ما لدويتو waxay iibisaa dhulkeegi waxay ka iibisaa imaaraadka iyo sacuudiga ayaan dhaweyto sacuudiga wuxuu masar baan ka joojinaa lacagta siiyo imaaraadku u yeedhay imaaraadku u ballan qaaday dhul kaloo badan inuu siiyo markuu dhulkii siiyey bay boqorkii baa maqlay sacuudiga yarkii dhacda sugayay wuxuu soo dhoof diyaarad orod ku qaatay oo tagay dhulkaasi siinaysa imaaraadka waxaan ama fasax iga qaatay dii waxaad igu joojisay lacagteeda ii soo diraysay waan soo rafuranaay dhul kale ana kala nasiib baadhay waa dhulkii masaarida wuxuu bixinayo dadku lahaayeen baa la bixinayaa marka axad saa u fikiraya oon khuta lahayn oo takhdiidkiisu yahay wuxuu idhahdaa الدولار في خليج زي الرز دولار في خليج ويجيب لسه بريسكا وين قرنون بس عقليس وين تاسمع كان نكاسيس وين إثيوبيا إريتريا جيبوتي كينيا إنتين وين إساسابانو صاروا ذنو لهين أنا كفكرنا وحنا جحية مصر وبارت وصل دولة في عام صحة وين توبر جرتي قومية الإسلام كي هو قامي جرتي وتاريخ هذا لك وحس ما يصير هذا وحا ما يصير يدي waa khatar ku jirta marka Xasan Sheekh isagu wax ma qaban baan ku haysaa isaga Ismaaciil Umar Geele laakiin danihiinu kuma jiro Masar danihiina istaraatiijigu Masar kuma jiro danihiina wuxuu ku jira xuduudeena inaan ilaashano Ethiopiana aan iska qaboojino saaxiibna la noqono dhow lana soconana dhibaatadeedana iska ilaalino saasay naga rabtaa naga rabto dawlad Carab oo badda noo dhaxayso inay kugu dirto jaarkaaga مشكلتها وين ككورنو وين ككورنو يعني وقت تمرت هي الاسكوش دارينا عرب ككورنو والله شيء تاسوي ان شاء الله جزاك الله خير شيخنا وإياك ان شاء الله انت سوى كل